waxa uu ka tanaasulay xiisadii magaalada Boosaaso. Waxa uu qaatay go'aankii ugu dambeeyay ee ka soo baxay eesimada gobolka Bari. Wuu ku jabay, waa looga italranaaday gobolka Bari, wuuna isdhiibay. Waa Siciid Cabdulaahi Dani oo markan u muuqday in fashil weyn uu kaga yimid dhanka iyo gobolka Bari, isagoo ka baqdin qaba kacdoon kale oo u sii gudba gobollada kale ee Puntland. Ayuu si cad u sheegay inuu aqbalay go'aankii ugu dambeeyay ee eesimada gobolka Bari ka saareen xaaladda magaalada Boosaaso. Waa Milga TV warshar gareeya warbixintan oo sii gaarsiiya qof walba oo nabadda jecel oo Boosaaso nabad la raba. Way fashilmeen Aranjan iyo Siciid Dani, way ku hungoobeen damacoodii ahaa qabso oo gumayso. Way ku fashilmeen boobka doorasho ee kuraasta xildhibaan ee taalla Boosaaso. BSF iyo eesimada gobolka Bari ayay markan guusha si weyn u raacday. Siciid Dani iyo kooxdiisa Aranjan waxay u muuqdaan kuwo daad kala raacsiiyey, iskuna dhiibaya odayaasha gobolka Bari si xal looga gaaro loogana heshiiyey xiisadda gobolka Bari ee Boosaaso. Falanqeyn ku eegi doonaa, balse marka hore saaxiibayaal sii share gareeya muuqaalkan oo like-na saara, nagu soo biira oo follow dhaha page-keena Facebook ee Milga TV si aad u hesho xogihii ugu dambeeyay guud ahaan Soomaalida iyo caalamka. Waa hagaag, Siciid Cabdulaahi Dani ayaa markan isdhiibay isagoo qaatay go'aan culus oo uu kaga laabanayo arrintii ciidanka BSF iyo dagaalkii uu ku qaaday Boosaaso. Warar inaga soo gaaray Garowe ayaa sheegaya in isbeddel uu ku dhacay go'aankii ka soo baxay madaxweyne Siciid Dani markii hore eesimada ka soo saareen xaaladda Boosaaso. Ilowreedyo kala duwan ayaa xaqiijinaya in madaxweyne Dani go'aansaday hoggaansamidda go'aankii u dambeeyay ee eesimadu ka soo saareen xaaladda Boosaaso, uuna qorsheynayo inuu safar ku tago magaaladaasi isagoo doonaya inuu iska dejiyo xaaladda waqtigan adag ka haysta gobolka Bari. Go'aankii eesimada ee u dambeeyay waxaa qayb ka ahaa in wareegtadii Siciid Dani laga laabto, isla markaana hay'adda BSF uu sii hogaamiyo General Maxamuud Cismaan Diyaano. Waxaa sidoo kale go'aan ku jira in DP World la ceeriyo, in 10% qoondada dhaqaale ka soo xarooda dekedda la siiyo horumarinta Boosaaso, iyo in guddiga maamulaya ay noqdaan kuwo eesimadu soo magacaabaan oo lagu kalsoonaan karo. Wejigabax ayay ku noqonaysaa tallaabadan Siciid Dani haddii uu aqbalo xubno kala duwan oo hurinaya colaadda Boosaaso, gaar ahaan sidaas oo kale agaasimihii magacownaa ayaa u muuqata markan mid magacaabistiisu ay saqiir noqonayso. Xaalka ayaa hadda ku cun Siciid Dani, wuxuu ka cabsi qabaa in khilaafka ka taagan Boosaaso uu sidoo kale dab ku sii shido gobollada kale ee Puntland oo ku sii baaho nacaybka Dani looga qabo gobolka Bari. Hase yeeshee hadda wuxuu adeegsanayaa kaarta siyaasadeed. Waxa uu rabaa in uu gacanta ku dhigo kuraasta taalla gobolka Bari ee Boosaaso. Waxa uu adeegsanayaa falsafadda ah la heshii iskuna dil, oo waxa uu rabaa inuu qoorta isu geliyo BSF iyo eesimada gobolka Bari. Hase yeeshee waxaa la leeyahay taasi ma sahlana in si fudud ay ku dagaalaan BSF iyo eesimada gobolka. Waa sababta ay ula midoobeen dagaalka dhanka Siciid Dani iyo kooxdiisa Aranjan. Hase yeeshee hadda waxaa la sugayaa safarka Siciid Dani ee Boosaaso ku tago isbuucan dhammaadkiisa, iyo raaligelinta uu siiyo in Diyaano iyo ciidanka BSF iyo odayaasha eesimada Puntland, gaar ahaan kuwa gobolka Bari, oo uu ciidamada madaxa ka saari doono. Haddaba daawade, adigu maxay kula tahay? Sideese u aragtaa qorshaha Siciid Dani ee fashilmay? Fikirkaaga iyo waxa ay kula tahay daawade ku reeb qaybta commentiga. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.